fiirso oo ka faa'iideyso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midan wax fogeynin waa midan wax ficilin waa falaaqayntii fahankeena farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare fariiso oo fiirso faafahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen fiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka بسم الله الرحمن الرحيم داوديال إفيرسديال إيجيديال إديموديال إركيال إلهديال إدكتيال أبيال هويال أبايال أبويال أبتيال أذريال أيال إيديال أبوبيال أييال أبوب أييو لوف السكويا كلها ما شاء الله أبشحن إلا أولا يال جيران يال مسؤولين يال ملوخ يال مدحوين يال حلبان يال علماء الدين يال أصحاب يال دلك جوج يال دبت الجوج يال وكفرها فول الكينة يو فهمديني فورما ذا أوت فديسينة وقتي كان أو كلوا إن شاء الله أن صوف فديسها وقتي كان أو كلواني صوف فديسها فاليا هانه صوف فرجها أيه فير سذيال very nice فرح وحيب فولو ما صوف السحاي هو صوف السحا هو صوف السحا كسو دوادا ان خضبك كوات فاليها خرنكا اذن اخريو وحال يري أو هنتي دورو هنتي دورا هنتي دور كخرنك سوماليا أيا أودي سؤهات لحساب تنك هيئتها ماليتها أما ماليتها دلك إسقو خلين دير أخاتي دقت سوماليا وحاس أملي هاي سيدي ميلا هنكلي أسيقا وح أسأل حساب تمو دقت مركز تجيوس خلين كيس دير كوتجي وحال يري خلين كان هذا سودير يا هاي ماشي أنا ماشي حسابي هيسي أو ميقا صوغشي ميقا بحثي ما أهن يا ما شاء الله تركي أبو وحاسيري ماشي حسابي هيسي ما أها ما تركي اسمه ودن كله والله هذه يا أم عليها أبو أنت دورك خرنك وإسبروي هاي يا أم عليها خضب كلابات شير لوجو هدلاي أرمها أبارها أيا يو إنك سوق من قابيين وحنا لوجو خبتي هولات وين معناها وحال لقى هدلاي أبارها ودنك كجرا إن وحلو خبطه ما أهن إن هذا وحلو خبه هويو وفيتشر دتكينا وباب أويان حوله ودمادين رفات لب ما يرى شرطان لسكوكو إمادي وحلي لك هدلاي مركا داد كان أبارا هايسو إي حولهان وإنا وحلو خبتا داد كي هداي توالع يهين هداي بابا يهين هداي بستودة تهي هداي كعد هاي وح مستقبلك إلا لو ورمي خضب كالسدحات مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو وتقانين أبو فرماجو وكساسين فرقائي فوضى كبحنا 4.5 مجرتي أنا غفر كليا أنه فرماجو أنكو فيلنا فرماجو تقانينا هم لها أبا تقانينا مدحوينا والبا وحاسعنا
كو بريدس جعليها كو واحد جعليها ليلة كو واحد جعليها إسسار كو واحد جعليها ما شاء الله مدحوينه فرماجة أيا وحلا ويديي وحا أوكو عشايو maxaa ugu jeceshahay ood ku casheysaa ayaa la yidhi madaxweyne farmaajo abo faaliyaha weydii farmaajo wuxuu ku jawaabi ilaa fool ku taala xubintii ciyaaraha iyo siyaasadda booskana waa idin haynaa waa idin diyaar sheekadii ama haddana mar labaad xubintii kalamaan oo caawa mucjiso gooni wadata mucjiso gooni ay wadataa cawada abo iidna waa nii haynaa diyaar waay shirkadda nadaafadda qaabilsan ee eeka la yidhaahdo ee uu leeyahay ganacsada sida warka uu qoraayo ayaaba waxay si xoog leh ama ay kula wareegtay nadaafadda gobolka banaadir muwaadiniintii nadaafadda ka shaqeey jirtiina hee waa la tuuri message la akhristi camalaa loo tuuri dhac dileed ilaahu rabbiyu raxmaano inkastoo la rabi in shaqa loo abuuro haddana darishaday ka baxeen dhammaantooda waa qodob xoogaa yar oo macnaha ma fiicna in muwaadan soomaaliyeed shaqa la'aan la dhigo dowlad waa tii muwaadiniinta shaqa u abuurta ma ahan haddana in muwaadiniintii shaqadii ay haayeen laga racdeeyo mar labaad aan idin akhriyo qodobadii warka ugu doorka roonay daawadayaal qodobkeena waxa isku saabsan yahay horta kow aan dikrino TV-ga Universal Italia qaranka waa fiirsanosiin waxaan rabnaa macal dadka dhalada fiirsanaya inay ila dikriyaan qodobka aan sheegayo waxa waaye Allahumma salli ala Muhammad wa alihi يا لو كسا وحالو كسا طريقة السنة والجماعة أسهقامي شيخ أحمد شاكر كاس وحسايا هذا الكينا بلاويز جمعي هذا نسو دافاي وحانك هذا نسو دوينتا شيخ أحمد شاكر لو سوبي كالي عرق سفيتا لساري فورميكا لغوغوري محس أهاي روغا لو فيدي طريقة يضدن مقعيسي الصومالية كجيرو دكريانا لقادي نبي أمان والسو دوي هاتي ننكي أن isdheheyni ama dad badan ay filayaan in siyahay nin xaaladaas ka turjumayo iyo magaciis dikrigaas iyo nin oo ahlu sunna wal jamaa in hogaamiye u yahay sheekada waa isbedeshay Sheikh Ahmed Shaakir nin kala snaqdibo nal cagaarna waa daarti ninkii ma baaha farmaajo soo dhaweentiis markii dhacday aslu soo dhaweeyay ilmaska arki ma ogiye Sheikh Ahmed Shaakir waa isbedel waxa rabaa galmudug oo dhisan oo xilliwaan leh oo adduun leh oo saqiir iyo kawiir oo maamooyin odayaal dhammaan qabto madaxweynooda Cabdikariin guuleedna hadda dhow is casili jir darteed iyo waxyaabo oo asaga oo magaciisa ku soo dirisi wagareeka waasicana liiri galmudugtii maamulkii dhisnay waxa sidi anaaba ka weyn mana aqoonsani هي أنا كان دتك أي فكر ككلنا الشلي واحد هاين شيخ أحمد شاكر وحوانين أو فعين وانين وحواه اليوا وحال رواء ناس مدحوين حتى وقل ما قول هلو دي ولا خبسة وحسيري قول معسى هاي قلبه مامل كذا منع قول سيدي وحيريس وصغير ليس كبير أنا بوين استاغنيا مر هذا الكيس أصيغ أفكيس أسك عدينا قدود إيجال عيارنا سمافر الشتنا وركيس وحاكمت هاي دعوة ديال
annaka maamulka dowlad goboleedka gobolada dhexe ayaan nahay maamulkeenuna maamulka hadda sheegta waa ka weyn yahay waa ka dhalin weyn yahay waxaan aaminsanahay annaku gobolada dhexe wixii ka jira in la taxliiliyo markii la taxliiliyo ka bacdina ummadda meel loo wada jiheeyo dantooda iyo deegaanka iyo diinan waduunyanba waxa u dan ah aan ka shaqaynaynaa annaku qoladii nagala shaqaynaysana aadaan u soo dhaweynayna haddaba waa ujeedin war indhihiina shanta waay hadalka sheegayna waa ujeedin anna waxaan sheegayno faaliyaha qaranka waa ujeedin beeman sheegni usaa qirti usaa xaaladaas iyo sidaas rabo ha ahaatee waxaan sheegaa sheekada waxa waaye war dheesha markaa gudaha u gasho ama aanteed ogaahaysaye si fiican dheesha u dheel Universal TV faaliyaha qaranka Cabduqaadir Cabdikariin Abaha Muqdisho waxaa la yiri aw hanti dhoorow hanti dhoora hanti dhoorka qaranka Soomaaliya ayaa awoodiisu ahayd la xisaabtanka hay'adaha maaliyadaha ama maaliyadda dalka isagoo qalin dheer u qaati degada Soomaaliya waxaas u maleeyahay sidii meelahan kale asiga wax oo as'uul xisaabtamo degada markiis tagiyo qalinkiis dheerka ku tagi waxaa la yiri qalinkan aadaas u dheer yahay meeshaana meeshii xisaabi heesi oo meeqa soo gashi iyo meeqa baxdi ma ahan ما شاء الله تركي أبو وحاسيري ماشان ماشي حسابي هيسي ما أها ما تركي اسمه ودن كله والله هذه يوم عليها أبو أنت دورك خرنك وإسبروي هاي يوم عليها خضب كاسي وحا إنو سو دياريي أو سو فيريي أنت دورك و أبها وريهنا أبها كسو دواو daawadayaal qodobkaana waxaas yahay haddii aad tihiin shacabka Soomaaliyeed oo hadda faaliyaha qaranka ee TV-ga Universal fiirsanayo waxaa ogtihiin wadankan xog walba oo ka dhacday idinka waa ogtihiin wadanka waxaa dhacday hanti dhooraha qaranka oo la socoteen ayaamahanba inas wadi oo la xisaabtan asal xisaabtamayo dadka madaxda iyo dadka dawladda howlahooda wada ilaa shaqaalaha isbisiiniga ilaa dable ilaa meesha uu sareyso aas shaqadiisa ay tahay inas ula xisaabtamo waxa sameeyay wasiirada iyo madaxda dawladda as waxa siil qaarkood xataa safar ma bixi kartiin waayo waxa la ogaanaa hantidii iyo waxyaalihii aad maamuleyseen meeshii ka bixiseen iyo meeshii marisan meel munaasab ma geesan mise meel munaasab ahayn hase ahaatee usiga oo saas suubinay hanti dhooraha maxaa la wataa makaseesin khalin le waxaa la wataa dhirirkiisa hadid aragtiin aad yaabaysin waxaa dhehey tubada biyaha lagu xiriiriye miya khalinka kor waxa uu xiran toosh waxaa dheheysaa M16 casri Mareykan mas wataa khalin le la marooya awadii ha ku jiftay harriyooda waxaas ku riyoodii maadaama asanti dhora yahay shirkadda Alberek inas aado os la xisaabtan asku soo suubiyo waa baxayaan ku dhahay waxaas wati meediyaha qaar ka mid hase ahaatee markii meesha la tagi ninkaana jaawa la ogyahay shirkadda Alberek daawadayaal waxma u maleysiin dukaan cariish oo jid caddaha ku dhisan oo sharci darro waay la dhahay ama nin baawur wada oo leesinkaaga qaldan la dhahay ma u maleysiin waxa waaye shirkadda company oo leeyahay dawladda Turkiga warka si fiican u fahma ha ahaatee Turkiga dawladda annakana waxay noo qabtaan iyakana howlahoodii adduunkooday wataan ha iska wataan muxume hanti dhooraha waxa siri waxaan rabaa inaan gudaha galo waxaan rabaa maxasahaye inaa laga hadlo dakhligii soo galay shirkadda wixii baxay sanadkan wixii la qabtay hala soo bixi dharkii la keenay bundada ha naqato markabka imaadi xisaab hal isla xisaabtamo horena waxaa loo yiri xisaab xilkas male hase ahaatee ninkii iridaba ma ka gelinba madaxa عيد الله دري شركة Alberek
kooxda ay ku taagan tahay udub tiirarkeeda waxa waaye tiirar aad iyo aad u adag oo mar hore dhulka la geli diyaashiyaal iyo waxa u dheelan difaac khatar waxa dheesaa Ramos iyo Abu Delambo iidan diyaashiyaalkaas ay wacata oo dadka Soomaaliya ka mid ah dad Soomaali oo difaaciyaal khatar ay isku haleysay wacati wiliba waxaan sheegaa isla shirkadda Alberg baarlamaanka ma ka ansaxsano oo sharci baarlamaan ma haysato ogolaasho xildhibaano waxay ku joogtaa heshiis ay dad dawladda u shaqeynaya qaarkood ay la gashay waxaa la yidhi xuduudda aad taagan tahay hadda Soomaaliya mahana la yidhi meeshaada qaranka tagaa la yidhi inta dawladda Turkiga leh xuduudda dawladda Soomaaliya waa soo gudubtay la yidhi meesha degada waxaa la dawladda meesha degada shirkadda Alberg xuduudeeda soo gashay la yidhi adiga xuduudaada ku ekaaw ahaaye hora xalana asmidooga Yurub ku darsamay xalani aad ogeedeen oo madiina dhinaceed ku yaali oo unka aan lahayn midooga Yurub magaciisi ku biiri al khati maali caday 6 saac nafturq la sii unku arkoon hadina shacabka Soomaaliyeed haddana maanta waxaa lagu dari degadii in la dhaho xuduudda Alberg waa degadii Muqdisho hanti dhowraha adiga xuduudaada ku ekaa iyo warbaahinta aad wadatid waxaa la yiri si horaba aan isku ogeeni dheesha markaad gudaha u gasho aad macaanteeda uga haysaa war dheesha meeshii ku dhamaata arkina faaliyaha qaranka Universal TV Muqdisho shir looga hadlayay arrimaha abaaraha ayaa UN ka soo qaban qaabiyay waxaana lagu dhigay hool aad iyo aad u qurux badan oo u weyn waxaa looga hadlayay abaaraha ba'an ee wadanka ka dhacay dadka iyo xoolahaba ay ku leeadeen ama ay ku baaba'een si wax loogu qaban lahaay macnaha ma aha hadda wax aan u qabano ilaan baabi'i dhibaatadii iyo rafaadkii hadday nagu socdaan waxaa lagu dhahay waa inaa wax laga qabtaa goormaa waaye markii dhammaadaan waaye maho see waayaaqe maanta ciidaa lagu dhahay beri waaye haddii dhaadad ciid ka bacdiyaan ilmihii dhar ugadaa ka waran ilmahaaga xataa makaa yeelayaan ilmahaaga marka abaarihii hadday socdaan dadkii hadday baaba'san yihiin xoolihii hadday baaba'san yihiin marka haddii shir laiskugu imaado futureka mustaqbalka wax baan u qabanaynaa hadda wax aan ugeyna male hadda wax aan siina male aabi Soomaaliya fen wen Soomaaliya wen aawi Soomaali anaka waaye dadka ka baaba'san anaka waaye dadka oo iyo xoolaha ka baaba'ooya Soomaali waaye annaga waxaan u qabsano ganacsatooy maalkaan mar walba iska hurooyo wallaahi ummadda masaakiinta wax ugu qabta koontada ilaahay wax ku shibta koontada ilaahay ma gubiheyso laakiin koontada iyo qasnada meelahaas waa gubataa warkaasi waxaa inoo akhrinayaa waryaheena habbi fowqa alhabbi khaam waraam sanjawiil waturaab waa faarax cali wehliye ciddii wejigeyga dareenti aqli leh oo keliya ku soo dhawaa faarax cali wehliye dadka iyo dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ku habsatay abaar aad iyo aad u baaxad weyn oo kuwii hore loo arki jiray aad uga ballaaran abaartaasna waxay saameysay dad iyo dunyo lo ayaa la cuntay ari ayaa dad cunay dadka badankii ayay waxay u dhinteen biyo la'aan iyo raashin la'aan abaarta darteed arrinkaasi ayaa waxaa shir weyn ka qaatay madaxda Soomaalida iyo weliba madaxda UN-ka waxayna isla falanqeeyeen sida dadkani Soomaaliyeed oo abaarta ku habsatay sidii wax loo gaarsiin lahaa beesha caalamka dhammaanteed iyo hay'adaha gargaarka goobta waa fadhiyeen waana laga arkayay UN-ka ayaa wuxuu sheegay horta UN-ka iyo madaxda hogaamiyayaasha Soomaalida ayaa shir weyn oo looga hadlayo abaarta iyo dadka Soomaaliyeed siday abaarta u saameysay ayaa looga hadlay kadibna hoolka iyo dadka sida loo soo abaabulay quruxda badan leh iyo dhammaanba waxa ku baxay qarash aad iyo aad u fara badan UN-kana wuxuu dhankiisa sheegay sidee loo gaarsiin karaa dadka Soomaaliyeed ee abaarta ku habsatay hogaamiyayaasha Soomaalida dhammaantood waxay ku hadleen luqadda Ingiriiska
wayna u riyaaqeen UN-ka jawaabta ay bixiyeen laakiin waxaa far taagtay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo yiri English mu ka hadlayo af Soomaali ayaa ku hadlaya wuxuuna yiri stable waxaa la geeyay $150,000 waxaa la dhibiya dhaaminaha loogu sameeyo meelaha qaarkood oo ugu daran way adag tahay inaanu biyo u dhaamino laba xaalad mid bay taagan tahay inaanu shabaabka u dhiibno oo iyagu dowladda ay u noqdaan oo iyagu ay ku xoogaystaan oo say doonaan ay yeelaan iyo maya ma ah inaan dadkii biyaba la gaadhsiinin waxba loo samayn karin maanta ilmaha shuban biyoodku ku haya kalooruhu ku haya bakool dawada xaggee laga gaadhsiin karaa waa iyo cidda u geyn kartaa maxaa gaari karaya seen ku gaadhsiin karayna midka ku baahan maanta gebaha raashinka u baahan raashinka dekada muqdisho laga qaadaa ma gaari karayo ka dekada kismaayo laga qaadaana ma gaari karayo baabuurtii baydhabo tagtay xamuulka sii qaaday baa wax soo iskoodgareeyala oo waxay u fadhidaa baydhabo inay wax soo celiyo helaan realitiga inaa wajahanaa fiican shayga xaqiiqadaa in la wajahaa sax ah dadkaani waxay u baahan yihiin inay dowlad helaan dadkaani waxay u baahan yihiin in lacagaha lagu yaboohayo ee loogu yaboohayo abaaraha waxay u baahan yihiin in ciidan soomaaliyeed lagu dhiso la xoreeyo kabacdi dadkaa meeshii la dejin lahaa iyo sidii la yeeli lahaa lagu waxeeyo waxaan rabaa inaan idinka codsado hay-adaha samafalka raashimada aad keenaysaan kismaayo intii la dhigay inuu afmada oo 120 kilomitir u jirta aan gaarsiin kari weyno ama muqdisho intii laga soo dejiyo aan gaarsiin kari weyno baydhabo dadka abaarta haysa oo Soomaaliyeed markay abaarta sii baxayso roobka soo dhow yahay wabigana oo biyo keeno ayaa waxa UN-ka ay u keenayaan galay cagaartooy waliba dadka Soomaaliyeedna waxay leeyihiin beerihiina ha u laabanina ee jooga magaalada Muqdisho si aad wax soo saar u sameeynin habi foqal habi Faarax Cali Wehliye faaliyaha qaranka Universal TV Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa taqaaniinaan ku malayna abo magac maskiin ma ka aha mindi malablen waa lagu guday waa kaseesiina oo malaya farmaajo waa kaseena anakoo kaseena usna waan ka saa malaya ma sha Allah haddaba waxaan idin sheegaa madaxweyne walba waxbuu ku casheeyaa waxbuu ku quraacdaa waxbuu ku qadeeyaa dhayle jeeni hani allahumma musta'aan maxaan ku dhahaa bira idaad wajigood waa nuunuuraa markino ma sha Allah okay farmaajo ayaa waxaa faaliyaha qaranka u weydiiyey madaxweyne maxaad ku cashaysaa cashadaada maxay tahay maadaama madaxweynihii waddanka aad tahay cawadii maxaad hee farmaajo wuxuu ku jawaabi idinka arki doona ilaa foolka taala daawasho wacan بسم الله الرحمن الرحيم دقدر جو ما حسنت هاي runtii inta badan interviewada ama waraysiga aan bixiyo inta badan waxay u badan yihiin mid siyaasadeed laakiin haddaad tiri arrimaha bulshada kulley ma garanayo waxaa soo wado laakiin waa sugaynaa niyo su-aashaada waa kasii adkaanaysa marmar ka dambeysa mas-uul haddaad tahay waa ku celinaya mas-uul haddaad tahay dadka waxay ku nool yihiin ay cunaan wax ka wanaagsan wax xaaraan ma cuni kartid dadka aad mas-uulka ka tahay waa inaa og tahay waxay awoodaan waa sax madaxdu way cuni karaan oo dee positionkii way joogaan inay cunaan soomaaliya waxaan oran jirnay brimo iyo sugunta iyo teerso dhaylo iyo wax alla wixii maaragtay dee cunto ah oo wanaagsan laakiin anigu markaan jooga meesha waxaan ogaa dadku inay cuni kareen wixii wax cuni kara digirta ama cambuulada wax la yiraahdo marka aad waxaan u cuni jiray cambuulada dadka ila shaqeeyana waa weydiin kartaa ay ma arkino cambuulo lagu casheeyo ya cambuulo ma sha Allah wadani farmaajo ma hal eri waay awadi ina socono hal eri malo waay wallahi malo waaynin farmaajo ma
hal malay yuumbi dhan loo waayo loo dudubo wallaahi ma loo waaynin farmaajo ma dhayla loo waayo hal eriyar oo 3 jir oo saan ah intaas ka bilaawa cunugiis inta madaxweyneyaalka adduunka saas waay cambuulan ku casheeya asiri cambuulo waa wadani farmaajona waa wadani asigoo wax walba heli karo ayuu haddana wuxuu yidhi aan jeclaaday inaan ku casheeyo cambuulo maadaama shicibkeyga ay yihiin shicib iska danyar ayaga inay cambuulo cunaan aniga inaan waxaas cuno ilaahay ow unti qofkaan saan maxaan dhihi karnaa unuga su-aal labaad ayaa la weydiiyey madaxweynaha ummadda soomaaliyeed maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxaas ahayd su-aasha labaad ee faaliyaha weydiiyey isla faaliyaha weydiiyey mudana madaxweyne kursigan dadka ay ku ordaayaan lisku dilooyo lisku xamahooyo qaarkooda jinni ugu dhacay kursi le mudana madaxweyne oo kursigan haddii lagu fadhiista seela naqdaa ilaahay baari waaya macnaha kursiga ma ku khudkhuteehaa macnaha adama khaadmeey macnaha see camal waay usmaa beesa dhalaa dusha gadaal jaakada ma soo buux sameey see kursigan mudana madaxweyne adaan ku weydiihaynaa adaa aabbaha ummadda soomaaliyeed ah adaa furihii nolosha ah nooga sheekeey kursigan markii lagu fadhiista sii la naqahaayo iyo waxaad adigu dareentay mar labaad madaxweynaha oo arrintaas ka jawaabaya ilaa fool ku taala daawasha wacan qofka siduu arka way aniga waxaan u arkaa kursigaas raaxo ma laha waa xil waay markaad ku fadhiisato oo aad mas-uul noqoto dembigeeda waa kuu qormaya haddii aadan ammaanada ilaalin haddaadan cadaalad samaynin haddaadan naxariis lahayn marka kursigu waa culus yahay inta badan waaba idhaahdaaba qofka hadduu saddexdaas ahayn inuu kursigaas haweysto ma aha aniga marka mabda ahaan shaqada siyaasadda shaqa hadda aan bilaabay ma ahayn markii la magacaabayay 94 yaan siyaasadda maraykanka ka qayb galay ilaa heer magaalo degmo ilaa gobol oo xitaa dadkii soomaalida ahaa oo qaxootiga magaalada yimid aan ku caawiyey in xitaa dowladda iyagoo qaarkood luqadda garanaynin ay dowladdii hoose ama dowladdii dhexe ama dowladdii kale ay shaqo ka helaan aadan kaga mahadcelina haddana waxaa kusoo dhawaatiin qodobka shanaad xibintii ciyaaraha siyaasadda iyo my big brother cabdiqaadir booska aday ku taala abo soo dhawaaw daawadayaal caweysin wanaagsan ayaan idin leenahay meel walbood joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkeenii kaftanka isboortiska oo sabti walba hadahan oo kale aad ka daawataan tv-ga caalamiga ah universal barnaamijkana waxaa idin qaada dhigaya anigoo cabdiqaadir boos ah ka bogasho wacan FA Soomaaliya ayaa cod buuxa ku ansixiyay kabtanka xukuumadda Xasan Cali Khayre kaasoo xidiga garbihiisa ah saluugsanayeen booska uu ka ciyaarayo 48 jirkan ka soo baxay junior Taceel Buur ayaa markuu sigtay inuu isaga fariisto ciyaaraha caalamiga ah kolkii ay hareysay fadeexadii Calcio Boli intii uu ciyaarayay kooxaha Som Oil iyo NRC garabka adeegiisu wacan yahay ayaa heesta taageerada shacabka iyadoo ay uga sii wanaagsanaan lahayd haddii farxiyo fiska hees ugu furto kulankiisa ugu horeeya ee xulka maadaama naadigiisa uu u soo saaray wareegga samafinalaha markii ugu horeysay taariikhda inta la xasuusto dhakhtarka u gaarka ah kabtankii hore ee galmudug cabdikariin guuleed ayaa laacibkaasi ku canaantay inuu dhammaystay kulamadii ay barbaraha la galeen ahlusuna iyo puntland bartamiya xagaagii hore iskooliska reer galmudug ayaa looga digay safashada kulamadaas maadaama uu xanuun ka dareemayay dhanka bidix ee feeraha
dhaawaca xidiga ayaase ka sii daray markii uu qaybtii hore ee ciyaarta dhammaystay kulankii damajidid lagu xasuuqay 8 bishii hore markaas oo laacibka reer gaalkacyo uu go'aansaday inuu miiska saaro calaamada hogaamineed ee kooxdan aan xidigaheeda ismaqlin ee galmudug 4 sano ayuuna xidigan ka maqnaan doonaa masraxa markaas oo ku beegan xilliga damajidid soo laaban karaan mar kale markii ugu horeysay taariikhdana tababarayaashii hore ee xulka Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ayaa loo ogolaaday inay la taliyaal buuxda ka noqdaan qaranka uu leeyahay macallin Farmaajo iyagoona qabanaya shaqo la mid ah tan macallinkii hore ee Manchester Alex Ferguson ka haya garoonka Old Trafford macallin Farmaajo ayaana mashquulinaya lajanadan maadaama Xasan Sheekh uu aqalkiisa soo dhigtay PlayStation si uu ugu madadaalo halka tababara Sheekh Shariifna uu ku biiri lahaa jamaacada xeebta liida iska xaadirisa jimco walba hoos u dhac ballaaran ayaa laga dareemayaa qaab ciyaareedka kabtanka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cosable tan iyo wixii ka dambeeyay markii amaradiisu ka shaqeyn waayeen xerada tababarka kooxda koowaad ee Hirshabelle laacibka ku soo fashilmay qaranka Cabduqaadir Cosable ayaa isku diyaarinaya in si afgambi ah uu kula wareego kabtanimada naadiga xilli uu xidigaha qaar ee Hirshabelle u ballan qaaday mushaar qaali ah garabkii hore ee maxaas Cali Cabdulaahi Cosable oo diidan tartankaas ayaa u yeertay ugaaska lajanka ah ugaas Xasan kaasoo garabkiisa aan marna laga soo xaroon mar qura mooye markaas ay wajaheen kooxda haatan u dhaadhacday kaalinta 9aad ee damajiri xidigaha hodan Cabdiraxmaan iyo Farxiye Kabayare ayaa ugu dambeyn qalinka ku duugay heshiis ay ku xakameynayaan naftooda kuna ilaabayaan qaab ciyaareedkii liitay ay soo bandhigeen xagaagii hore shaashadaha caalamka ayaa laga daawanayay labadan xidig oo farxad wadaagaya in naadiga reer Ceelbuur ay gaartay afardhamaadka Champions League Soomaaliya ayaa sababay in xidigta codka macaan ee Farxiye Kabayare ay iska ilowday xurguf walba oo ay xamili weyday xagaagii hore kooxda iskeed isku magacaawda ee Soomaali Awaad ayaa wali ku jahawareersan qaabka ay ku bixinayaan biladaha maadaama aysan lahayn khibradda ay ku qiimeynayaan tartamayaasha kooxdan ayaa haatan tartan u qabatay lejanka Axmed Naaji iyo xidigta Amaal Nuux taasoo xirfadeedu ku egtahay YouTube Amaal Nuux ayaa saqabtay rajo 100% ah maadaama sanadii hore tartan u dhaxeeyay Maryan Mursal iyo xidig aan saameyn lahayn oo reer London ah lagu garaacay Maryan Mursal kooxdan ayaana wali sixin jadwalka xidigaha tartami kara maadaama dunidu ama kaag ku noqon lahayd haddii ay arki lahaayeen Cristiano Ronaldo iyo goolhaye Lopez oo bilad ku tartamaya kabtanka kooxda Daljir Axmed Fiqi ayaa ku doodaya in haddii Fiska ama Kabayare u qaadaan hees macaan uu ka soo dabci doono mowqifkiisii adkaa ee uu qaatay bishii hore Gurceel Sports ayaa daabacday saakay xidiga Geed Mambo ayaa ugu dambeyn la wareegay saamiga laacibada NBA-da Mareykanka Hodan Cabdiraxmaan sida ay xidigtaasi ku cadeysay barteeda Snapchat in wakiilkeedii hore uu ahaa oo uu wax badan ka ogaa heshiisyadii Mursal Muuse iyo Alta ayaa ka yaabisay indhaha bahda xiiseesa kubadda cagta Universal TV ayaad wali inaga daawanaysaan laacibka Mo Farah ayaa ka labalabeynaya imaanshaha madaarka Hargeysa xilli uu ku dhawaaqay kelmadda Farmaajo iyo Geeya oo horyaalka Somaliland ka ah mid mamnuuc ah oo lana mid ah tan naasiga shirkadda nadaafadda qaabilsan ee Eka la yiraahdo ee uu leeyahay ganacsada sida warka uu qoraayo ayaaba waxay si xoog leh ama ay kula wareegtay nadaafadda gobolka Banaadir muwaadiniintii nadaafadda ka shaqeey jirtiina wala tuuri message la akhristi amala la tuuri dhac dileed ilaahay ya ilaahu rabbi rahmaano in kastoo la rabi in shaqo loo abuuro haddana darishaday ka baxeen dhammaantooda waa qodob xoogaa yar
oo macnaha ma fiicna in muwaadan soomaaliyeed shaqa la-aan la dhigo dowlad waa tii muwaadiniinta shaqa u abuurta ma ahan haddana in muwaadiniintii shaqadii ay haayeen laga racdeeyo marka hanti dhowrka qaranka waxaan ola yaabanahay meelaaba shaqa taalaaye shaqada oo hadda la dhahooyo magaceed iyo shirkadda nadaafadda qaabilsan ee eco dadka ma ka celiyo ma ole xisaabtamo dadkii masaakiinta dhulka xaaqi jiri waa la buriyaa la dhahooyaa dadkaas ma u waramo dadkaas ma u kheeliyo dadkaan ma la xisaabtamo marka waxa waaye qalinka dheer inaas wax kale ku daro waayo lianna qofka waxaa la dhahay $5 lagaa qaadaa ama ahaayo ama ahayn cid baagamuunda ee masaakiin ee agoon eh $5 intay ka keenay bishii waxaa laga yaaba halka cawale inay wax cunaan waxay cunaana bacyar leh inay ku xiraan oy meeshii rawaan iska gey karaan marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed yaan la dhibin shacabka yaan la baabi'inin magaalada muqdisho waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu nadaafadda xun xilligan la joogo hase ahaatee waxaa ku baxdo lacaga aad iyo aad u tiro badan iyadoo gudoomiyaha gobolka banaadir uu qandaraas ku siiyey shirkad uu isaga leeyahay halkii shaqaalaha minishiibiyada ay shaqo la-aan yihiin maalmahan dambe waxaa gobolka banaadir kusoo badanaya shirkado qandaraas ku qaata howlihii dowladda oo iyagoo shaar dowladeed hufan shacabka ku dhaca oo haddana qandaraas ku qaata shirkadahaas waxaa ugu daran shirkadda eco oo uu wax ku leeyahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale sidoo kale waxaa shirkadan ay bahwadaag yihiin shirkadda shidaalka ka shaqeysa ee hore loo siiyey dekada qalalan ee shirkadda loo yaqaano hes petroleum gudoomiye madaali ayaa shirkadan eco waxa uu ku wareejiyey nadaafadda magaalada muqdisho iyada oo guryaha iyo goobaha ganacsi ka qaada lacaga aad iyo aad u tiro badan ciddii ka hor imaada ayay gobolka banaadir ciidamadooda u taxaabaan xabsiyada shirkadaha nadaafadda gobolka banaadir waxay ka xun yihiin tallaabada uu qaaday gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taasoo uu ku xaqiray shirkadihii hore u jiray abuurayna shirkad cusub number 3 shirkadaha nadaafadda gobolka banaadir waxay ku baaqayaan in la dhowro ganacsiga iyo xuquuqdiisa number 4 shirkadaha gobolka banaadir waxay ugu baaqayaan maamul gobolka banaadir inuusan abuurin qalqal iyo iska hor imaad u dhaxeeya ganacsiyada gobolka banaadir taasoo ka dhalan karta dhibaato badan hadda intaan ka weyn number 5 inuu maamul gobolka banaadir shirkadihii hore u sheegtay awood isagoon tixgelin habraaca ganacsiga gobolka banaadir isagoo kala tashan rugihii ganacsiga Soomaaliyeed oo shaqeynayay number 6 waxaa kaloo cadeynaynaa in xaaladda hadda jirta aysan ka shaqeyn karin hal shirkad oo qura magaalada muqdisho madaali oo aan ka daalin qandaraasyada ayaa sidoo kale shirkadda eco ku hoos wada mashruuca bii'ada oo ay maalgelinayso qaramada midoobay kaas oo lacag 4 milyan gaaraysa ku qaatay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Sharmaake madaali waxa uu joojiyay shaqadii shirkadihii hore oo ka shaqeyn jiray nadaafadda kuwaas oo dad badan oo masaakiina ay ku shaqeysan jireen maantana dadkaas waxay ku dayacan yihiin magaalada muqdisho iyagoo aan wax shaqo haysan halka laga rabay dowladda inay shaqaaleyso dad dhalinyaro ah oo shaqo la'aan hayso ayay hadda waxay sameysay bedel midkaas ah taasoo ah kuwii shaqeynayay inay shaqo la'aan noqdaan sheekadii ama haddana mar labaad xubintii kalamaan oo caawa mucjiso gooni wadata mucjiso gooni ay wadataa cawada abo iidna waa nii haynaa diyaar waay madaxweyne ma jooga dadka waa jooga soo geli haye soo gal iniga warka dadka soo ولكن حفيز المدحوين عندنا يوسع علي حفيز المدحوين بليز إلي أقول كده فكر صافي بليز هذه إلي أقول كده بليز أنت الماء؟ عادي الصوت هذا
حالكي ده اوكي سما الحمد لله وعلى وفعنا شركاتنا وعليهم كل إيمان ميها waxaan igu wacay bariyahan saad dareemaysaan Puntland xalkeeda ma fiicno Puntland xalkeeda bariyahan dad baa qasay sax gartay ma Puntland waxaa la rabaa in laga dhigo sidii galmudug oo kale Puntland waxaa laga rabaa in laga dhigo sidii koonfur galbeed oo kale soo xagarteen ma anigu sida ogsoontii professor ahay jaamacadda Mareykanka wax ka dhigaa macalinka waxaan soo noqday ra'iisul wasaare dalka Soomaaliya waxaan soo noqday musharax soo madaxweyne Puntland horta inay doorteen waa maasintiin laakiin Puntland waa la qashaaya anigu hadda waxaan ka imaaday dalka China waxaan ka raadiyay Riig waa taqaanaa Riig ceelka qodaayo waa Riig qaali ah soo xagartama waxaan u doonaa oo kali ah dadka reer Puntland inaan hormariyo inaan ka bixiyo oonka ka bixiyo soo xagartama marka Riigas waxaan soo bixiyay 70,000 oo lacag Mareykanka soo bixiyay waxaan ugu talagalay inaan ku hormariyo Puntland inaan ku hormariyo soo xagartama anigu waxaan ahay siyaasi anigu mihi shaqo iyo calan bakala gado bagaashka ma gado siyaasadda gada anigu waan baa arintaas ee Puntland arinta ka qasaayo markaan ogaaday waxay ku soo husbatay xarunta ay madaxtooyada dhexdeeda Puntland anigu markaan arinta ogaaday agaasimihii guud waan ku tuuray meesha waxaan soo magacaabay agaasimo oo aad taqaanaan هيا مدحوينه waxaan rabay inaan hal ku su'aalay ma ku su'aali karaa wax kale ma aha bahashaasi aad sheegayso hadda ceelka qodayso biyaha ay keento biyo macaan ma keenaysaa mise kuwii xaraarka ahaa un bay keenaysaa waad fiican tahay su'aal fiican waay marka aniga tagay dalka China waa Riiga ugu fiican ee litos oo ugu lacag badan Riigan markuu dhulka biyaha israadinayo biyaha macaan uu dhawaana ma tagay ilaa ku dhawaanaya waa intaas oo laakiin markuu dhawaado ee biyaha macaan soo qaxaan marka waxa cawdteen biidana hadda waxa cawdteen biyo fiican cawdeen laakiin waxaan sar dab tagayna ina biyo macaan arkaan soo xagartama أنا دمبل ماشي وسابيا عزبة راحة بدي خالة هذا كم عمي هذا بيم أدير ولوان هيا واحد سهل ولوان هيا بيها معان ولوان هيا كذب بحال معقولة كي عزبة بار عندها نوري بيا مدن ملح عزبة هربا وعقد عليك عزبة كان عزبة جوجي بي فعلا كان أكمل الدلالي رتاده صح قلت ما أدير ريال بدل أول شقينا لا أول شقينين قعدت كتاجر يقدر حبها أيوة شقينين ما أنت سأسوون هاي Puntland أنا قال له Puntland إني قال له Puntland أنا قال له Puntland هو قبله واضح أنا سنتين وكان خالد من المدحوين والكاي أنا كان مدحوينا وأنا في الصحيح متى عملوا واسي مش أقول لهم بيد أنا عبنا بينا أنا ما كبدل كله لا كبدل كله أنا بيجي نريب الله كنا أخو قبيس أنا عاد بيد أنا تكين بيم عن تكين أنا يا حاني بدلان أنا ولا أطفال أنا سياسة وأشياء العبي
هذا كسر صافي ما الله شيء صار ولا ديكتا حاشا قذا كدي بريان كتقعد أرى عن لعبة دونك هذا رجع سعته ما تتعدين نودي بقى فيس كد ما خسع اسمه هاي واحد مدحوينا وحبا ياب لو ورياب لا شيء ما انت يا حيابا وشيغا حيو وحيابا آد ياب ويا horta ani waan bajiifay waan jiifay mise waan hurday waan hurday haye madaxna ay xanuuna waan iska hurday haye wuxuu sheegay laakiin ya wuxuu sheegay uma la soconin miya ma la socon waa hurday aan ku dhawayaa ka warhe u sheekay arabaayo muxuu yiri madaxweynaha riig baa keenayaa buu yiri riig maxaa la dhahaa dee kii ceelka qodayay dee keenay dheh dee haa madaxweynaha waa keenay haye ma garatay sax haye haddee waa kaas war dhanba unukaa ku hayn haddii hurdays meeshii shirka jaraa'idka adi waaba isku fuuriyeysa laakiin madaxweynaha warkiisa dhanba ana ka haynaba $70,000 riig ah ka soo bixiyay caqligiisa annaka maxaa wax maanahay ee magaciisa bahluul jaamaco warkaan yow si fiican u fiiribo adiga waa tii xisaabaadka iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga aad ku fiicneed sheeka ma ku jirta miyaa meeshaan haddii la dhaho maxaas ay garoowe ilaa nairobi diyaaradda ku bixiyso nairobi ilaa shiina diyaaradda ku bixiyso maxaas ay hoteelka la degaayo dowladda shiineyskana halkan oo dhulka ceelka qodaayo $70,000 saas nagu sadaqaysata eena siis ase qarashka ku baxay iida galina meeq waay hadda waxaasoo dhan ba hadda wax la xisaabayo ma oo tan 70 oo kaliya lagu sheegay tan kale maba la sheegayo tan suuqa u adeegto ma la sheegayo mayo tee ku aragtay saas ana ku hayo 70 ku dhufo 70 ku dhufo ikana xisaabku hadda waa kasii dartay waxa weydii ana hadda qarashaadkaas maxaan ka faa'iideynaa hadda anaga waxaan ka faa'iideynaa biyo macaanayo riigan hadda madaxweynaha keenay hadda biyo macaan ma lahayn mar dhow u dhawaado dhahay hadda soo qarxaya waa dhaweeyay sugana arkaa kordhicina hadda loo yimi hadda idin sheegay iska suga aamin adigana barjile caalan ku wala ismaamul hooya 70 ku taman ku dhufo garooba mataalaba arabaayo ma sugi karna anaga biyo cusbaha ka dharagno cusbada cabi jirteen suga biyaha macaan kama meesha ciri ku qabi jiray cusbadan lagu qabeysanaay waa anu ko yar yar dad duq amal naqan dib ma laha hadda waxay rabtaa dulqaaday rabtaa loo dulqaaday ma yasaxday halka waa la helaa iska dulqaata waa sugaynaa يا واسك سجين جامعه لكن يفارح أجلس ما حسب أول هذا الدورتي يسكلا تشتري كم مضح أول يوم لا تشجري أول يوم لا تشجري أنا هذا روح أوي كان هذا أجلس ما عصب وأجلس ما بارعة ونكون أكثر مجرو والسليم هي آمين فكر كاس ما خبطه ولا شيء ورياده وران هذا ورك عدين كودتين بايو أنا قوم قرنا أيو صوت أنا هذا هو مالها كيمدي marka ninka ay sheegaysin haduu wanaagsan yahay ma asiga madaxweyne ka dhigataan ma saas waa waray fiican weeye kan hadii booska la keenaa kan kala asbax ma ninkan ma yakan kala waa in meesha laga saara waa bala tuura mi cusub la tuura waad fahantaday la isku caday ray fiican baa keen baayo tuurayna ha aabino qalbiga aad horta ko bataati waay ninkan kuusan oo hadda anaka sisna uu yeelay arkees miiska 40 mar noo gargiracay warnaga tuura ninkan kala fiican la tuurna isku raacna ninka ku bedelan oo hadda waad isku raacdeen saas isla garateen laakiin amaana la maqli la mininkiisan taay hadda cidna ma maqline hadda saas noo balan baaja aan kala tuurno ka bixinaya balad yaa laga bixiya ninkan si wala tuura hadda waxa ka bixinaya balad tuturane kuskuska tuturane cuscuska tuturane tuturane cuscuska tuturane cuscuska haddana waxaa la soo gaaray waqtigii aan ku wareeji jiray ee boogay Maki Xaaji Banaadir abwaan Maki Xaaji Banaadir iyo wargeysyada iyo waxay qoraan daawasho wacan ilaa fool ku taala
مع سنة عبد مريد دراجكس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال كسر دواء برنامج كورجيس هذا وحلي هذا وكالات وقبرتين تي في عالمي يونيفرسال استوديو سمجال مقدشو داود يال تضوات كان برنامج كورجيس هذا وحان كسر قادنا ورجيس كا لما قعد حي دب إيو بيو ورجيس كا دب إيو بيو بقي سمانتا وحوكو بلاوي dabka iyo biyaha labaduba waxay lagama maarmaan iyo aas-aasba u yihiin nolosha dadka iyo dunyada hase ahaatee waxaa lagu ducaystaa labaduba kheyrkooda mooye shartooda allah naga xijaabo waayo marka ay quman yihiinna waa lagu dhaqmi karaa waa laga dhaqmi karaa waa lagu dhismi karaa marka ay kacaanna waa khatar waxbay baabi'iyaan waxbay xaalufiyaan labaduba waa khatar sidaa darteed qoraha maqaalka wargeyska dab iyo biyo wuxuu yidhi ganacsatadii dhowaan ay khasaaraha ka soo gaareen dabkii ka kacay suuqa dalkeena soomaaliya ugu weyn ee bakaaraha dhammaantooda waxaan leenahay bedel kheyr allah idin siiyo wixii niga gubtay wixii niga khasaaray wixii niga baaba'ay wax ka kheyr badan ka baraka badan ka xalaalsan allah idin wada siiyo ayuu yidhi intaasi wuxuu ku daray laakiin ducada horteeda lama liibaano ganacsatada maanta jirta markaan si hoose u fiirino ma qadariyaan dadka masaakiinta ah oo goobahooda ganacsi u tegaya in ay wax ka helaan kaalmo ka helaan sadaqa ka helaan baawur fuul ka helaan biyo cabaal ka helaan laakiinse ganacsatada badiba kool ayay ku wada jiraan ayuu yidhi qof kasta oo bakhaar fadhiya amaba carwa fadhiya ama dukaan fadhiya ama warata ah kooluu ku jiraa kii jarmalka la sheekeysanayo kii jabaan la sheekeysanayo kii biyonyan la sheekeysanayo kii kuuriyada koonfureed la sheekeysanayo kii maraykanka la sheekeysanayo kii la sheekeysanayo sacuudiga la sheekeysanayo kii imaaraadka la sheekeysanayo adduunkii ku wada jiraan ma fiirinayaan dadkan masaakiinta ah oo ay ishoodu qabanayso oo kor taagan xitaa qaarkooda uma khuuraan markay dhahaan magin allah amaba noo kaalmeeya allah noo sahlo xitaa inay dhahaan hataa uma khuuraan ma fiiriyaan il naxariis ah kuma fiiriyaan lama hadlaan ma qadariyaan ma qiimeeyaan laakiin waxay qiimeeyaan shay oo dubay ka jooga 5 dirham inta inay ku gadaan $25 dalkan waxaan ognahay muddo badan daawooyin dhaceen raashiin dhaceen waxyaabo sun ah in la keenayey in laga iibinayay shacabka wixii dhimanaya ha dhinto wixii fakanaya ha fagto ayay arrinta ahayd sida saasi waa laga fiican yahay ganacsatooy mindida daabkeeda adinkaa gacanta ku haya dalka lacag ma taalo badeeca ma taalo hanti keed ah ma taalo wixii adinka haya walaalayaalow dadkiina u naxariista walaalayaalow dadkiina u hiiliya walaalayaalow kuwa taagta daran u kaalmeeya walaalayaalow kuwa hiilada idinkaga baahan u hiiliya allah idin hiilinaya allah idin xafidaya idinka iyo hantidiina iyo owlaadiina waa barakoobaysaan waa dhurooweysaan waa badanaysaan haddii aad sadaqada bixisaan sakada bixisaan dadka u naxariisataan dab is arkimaysaan biyo is arkimaysaan daadad is arkimaysaan dhibaata is arkimaysaan holac is arkimaysaan kalaroor is arkimaysaan waa xasilooniyaad helaysaan waxaad helaysaan maal baraka leh hanti xalaal ah baraka leh lagu duceeyey qof kasta oo dhahayo ilaahay oo barakey ilaahay oo noo badi ilaahay oo noo bulaali taasi wax ka suubanna ma jirto wuxuu yidhi xilligan haddaan nimaado dalkeenna wuxuu ku jiraa xaalado aan caadi ahayn gubashada goobaha ganacsiga oo ugu waaweynna way soo laalaabteen marka allah hala tala saarto sadaqada bixinteeda halis faro sadaqaan bixiya ma aha hal xaba rooti awukey iyo hal xaba moos khalooco aan dhiiba ma aha adigoo maanta oo carwada leh
ma ku khuraacataa hal xabo rooti awukey oo xali baryi iyo hal xabo moos oo tacbaan eh adi ma ku khuraacataa ma ku khuraacatid ilmahaaga ma ku khuraacdaan ma ku khuraacdaan ma u khurtaa ma u khurtid masaakiinta ha siinin lacag sii lacagta sarif kunka tabcaanka ee qeybi kunka sakaraadka ee qeybi way u baahan yihin ummadda waxbay u taraysaa walaalayaalow aan isku ogaano in aan dadkeenna u kaalmeyno si ilaahay wixii shar ah wixii dhib ah uu noogu badbaadiyo ayuu kusoo gebagabeeyey wargeyska dab iyo biyo boggiisii maanta iminkana waxaan gelinaa qaybtii ahayd wax ka baro suugaanta iyo maamahooyinka soomaaliyeed dalkaygaan u qiiroonayaa doqoni yeelkeeda dadkaygaan u qiiroonayaa doqoni yeelkeeda diintaydaan u qiiroonayaa doqoni yeelkeeda dawaaqtinka halkaan uga socdaan idin dareensiine dulqaad iyo inaad muujisaan debicsanaan waarta isku daya allah deeqbaxshee dejiya laabtiina halees dilo dowmaahe midyaha ku celsha daabkooda dib u fura dariiqyadii nabadda gogoshii daaweynta duruufaha waxbaa lagu bartaa qofka dareenkiisa sidaanfuran inuu uga waramo wuxuu danaynayo haloodaayo waa mudan yahay dib u heshiisiinta ku dabaqa kitaabkiiyo sunnada daawada waa taasi wax ka duwan haddaad qaadataan daqarka iyo boogtiyo xanuunadii la daaweyn lahaa bay ka daraayaane soomaalay dagaal lama rabeena wadda doon doona tolkaygow dagaal lama rabeena wadda doon doona dadkaygow colaad lama rabeena wadda doon doona iscafiya dadkiiyo dalkan u tura diriirtan sooyaalka qaabkii looga daawoobi laa fura dariiqeeda dulqaad baa adduun lagu dhaqaa nabadda waa daawo isku duubni baa lagu hodmaa nabadda waa daawo dad iskaashibuu walax ku yahay nabadda waa daawo tanaasulka dow baa lagu furtaa nabadda waa daawo danqashada xalkay qayb ka tahay nabadda waa daawo dagaal iyo colaad joogta baa laga ducaystaaye dalka yaga allow noo xasili daa'im baa tahay dadka yaga iswaafaji allow daa'im baa tahay magaalada inoo deji allow daa'im baa tahay gobolada inoo deji allow daa'im baa tahay tuulooyinka inoo deji allow daa'im baa tahay xaafadaha inoo deji allow daa'im baa tahay degmooyinka allow noo xasili daa'im baa tahay dabkashadan allow naga bakti daa'im baa tahay colaadaha allow naga dulqaad daa'im baa tahay dagaalada allow naga korqaad daa'im baa tahay awaaraha allow naga dulqaad daa'im baa tahay darxumada allow naga korqaad daa'im baa tahay cudurada allow naga dulqaad daa'im baa tahay mandar khayr allow noogu deeq daa'im baa tahay nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahay dembi dhaaf allow noo hibey daa'im baa tahay saandooneyna noo yool allow daa'im baa tahay dalabkeyna noo fuli allow daa'im baa tahay ducadeenna eebow ajiib daa'im baa tahay aamiin iminkana waxaa la soo gaaray qaybtii ugu dambeysay iyo saddexdii maamaha waxaan ka bilaabeynaa qofkii waalan walaalkiisa ka miran qofkii waalan walaalkiisa ka miran qof rooraayo hortiisa lama rooro waxaan loo dhididin laguma dheefsado intaasi ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka wargeysyada iyo maanta dhinaca farsamada iyo kaamarada waxaa iga saaciday guuleed cabdisalaad khaarey iyo axmed cali bare xafaara wargeyska waxaa soo diyaariyey isoo maryaalkana kasoo jeedinayaan waa maki xaaji banaadir buurfuule banaadir baaba xaaji bacdaa dhuuqso annagoo isku duuban waxaan idinku dhaafeynaa nabadin nool kulanti amaana allah iyo kulanti dambe oo xiise leh daawadayaal haddana waxaa idin salaamaya dhammaan wariyayaasha faaliyaha qaranka waa number 1 waa abwaan maki xaaji banaadir baaba xaaji bacdaa dhuuqso waa abwaan maxamed weli xaaji axmed oo ku magac dheer abba jobka organka haleedsan waxaa kaloo idin salaamayo habi fowqal habi sanjawiil waturaab qaam waraam waa faarax cali wehliye waxaa kaloo idin salaamayo abukar jaajumo waxaa kaloo idin salaamayo abbaha waxaa kaloo idin salaamayo waa cabdulqaadir boska waxaa kaloo idin salaamayo waa deeq darajo
waxaa kaloo idin salaamayo waa wariyaha cusub ee hadda nagu soo biiri ya aad ma aragti ama arkin allah waxaa kaloo idin salaamaysa waa abaayo hani macnaheeda haddii oo la macneeyana waa malab maasha allah waa gabadheena ugu yar waxaa kaloo idin salaamaysa aamina macow hee waa cabdulla waaye axmed cali xafaro cameraman ayaa idin salaamayo عبد حميد كرزاي أيا إذن سلامة إنجنير أحمد أبو بكر إذن سلامة عبد الله حسين وإذن سلامة أقاسمة يونيفرسال إن كوفي إذن سلامة وحكى له هذا سجوني هان إذن كل سلامة أما إذن سلامة وديها دوبها دياريها دجيها برنامج كفاليها قرنكا أو مجلس الله هذا قولت عبد الصلاة خاري يرك سندك ما شاء الله جلق سنة قولت عبد الصلاة خاري وإذن سلامة iyo anigoo magacayga la yiraahdo sheega hore ka sheega hadda idinka dhan aan ila hadlooya sheega magacayga sheega ya sax waay wadani ma sha Allah haye fiirso oo ka faa'iideyso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midaan wax fogeynin waa midaan wax ficlayn waa falaaqayntii fahankeena farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen fiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka